magacaygu waa dahab ها حقيقة لقى هذا مقعد xaqiiqada laga hadlo dahab baa ka samaysna waa gabadh عقد نبتة هويدا أباك هويا dahab وكان نبتة سات كوكو قرحته maxay kugu bixin hooyada afa ayaga ila jeclaad ma xaafadu maalin ay dahabisneed bad dhalatay miya waa la igu farxay said dahab bad noqotay yes aad ma astara adaa kiida hooyada aaba waxay igu bixiyeen magaca nasiib way magacaygu wuxuu ka tarjumayaa inaan hoodo badanahay oo nasiib ahay kan nasiib bad wahayd xaafadiina said way igu taajireen ma markaan dhashay ma sha Allah waxaad ii sheegtaa ma adigu intii soo ugu yartay may waan dhaxeeyaa midun bay iga weyn markii aad dhalatay hoodaal wala nimcay hoodaal ay noqday reerkii oo dhan aad ma astara adaa budawra marka saa inoo wanaagsan u noqdo Faadimo hooyada iyo aabaha maxay kugu bixiyeen magaca Faadimo muxuu ka tarjumayaa magaca Faadimo horta Nabi sallallahu alayhi wasallam intiisa la oran jiray Faadimo bint Rasuul marka saa inoo wanaagsan u noqdo aan ugu daydo maxaan dhahaa wanaagay lahayd Faadimo Rasuul darteed baa leegu bixiyay Faadimo waliba Faadimo Sahra yes ma sha Allah magaca hooyada aabaha waxay kugu bixiyeen inaad gabadh wanaagsan noqoto gabadh wanaagsan noqdo waana noqday saaxiib ma sha Allah maniga muuqan ma sha Allah Ilaahay ku barakeeyo waxaan ka xishoodaa inaan dadka waaweyn afka ku taago waxaanan ka khajilaa inaan suuqa qaawanaan ku maro de markaa intaas weeye wala waan dhawahay waxaan ka xishoodaa anba ka khajilaa wax kasta xun si gaar ah uga khajishaa dadka kaga duwanta wallaahi wixii markaan xumaano arkayo markaan bilaasturaad ahayo kale dadka yarka qof aan ka dhacayo aan arko iyo qaawanaantada u aragtaa ay khajilaad markaan oo qaawan ciidan ka dhacayo kale qof sharaf loo kale aan arko aan ka dhacaa laakiin ciidan sharaf lahayn dad aragto kama dhacay ma igu ka dhacaa dadkii loo dhan anigu wada sharfaa marka kala ka khajishaa waxa ka khajilaa anigoo maaragtay makeup waxa marsan inaan babas aan badad jamaca dhex galo aan ka khajilaa aad ma astara hablaha qaqaweyna socdo banaanka qurux moodaya xiranaya cabaayadaha iyo sheelada yar soo barnaamij soo shaqo qoranaysaa maxaad ka xishootaa maad ka qashishaa waa dhawi walaal marka hore maxay talaa waxaan ka xishoodaa qaawnida hablaha qaqaweyna socdo banaanka qurux moodaya xiranaya cabaayadaha iyo sheelada yar yararka ku dhajisan ku xaragooda maxaa kale ka xishootaa waxaan kale ka xishoodaa dadka caytamaya dumarka meelaha ka caytama social media ina soo galo oo ka caytama gambarkan walaal adii dhiganaa soo dhawaada hal su'aal wadi wadiina ooy meherkiina xoolaha ka dhigan lahaydeen mise lacag ba ka dhigan lahaydeen imisa ka dhigan lahayd sababtaa hadda xoolo ma jiraan waxaan ka dhigan lahayn 400 gram 400 gram kaas waa dahab baad ka dhigan lahayd markaa adiguna maxaad ka dhigan lahayd 500 gram 500 gram oo dahab walaal ma wax ka deysan dadka waxba kama deyn karo hadaan lacag baysan ka waran waxana qaaliyaanahay inaan qaaliyaatay marka hawlo dhan wada qaali maxaad kaga duwantii waxa la badan kaga duwanahay la wadaag wax kamid ah inanta baad la wadaagaysaa wadalka qabay waa nuuxiyad